cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax naftiurihii baan xog rasmi ka hayaa goobjoogihii arkay saacado ka hor markii hadda bariga Afrika ay ahayd afartii xilliyada soo salaamay ee xabsiga ugu tagay baan in badan wada hadlaynay sidaa daraadeed waan ku qasbanahay inaan la wadaago oo Soomaali weyn iyo wadaniga dhabta ah iyo kacdoonka dhalinyarada ah iyo geesiga dhiidhiyaya iyo xumaandiidka dhamaantood la wadaago cabdikariin saacadii ugu dambeeyay in xogtiisa helay sida uu ahaa waxaan u mahad celinayaa oo xogta in soo gaarsiinaya walaalaha Soomaaliyeed ee gudaha Itoobiya jooga iyo walaalaha iyaguna ogaadeen joogay xog ka haya waxa kale oo u mahad celinayaa dhammaan dadka ku howlan inay cabdikariin xaaladiisa la socdaan aad baan ugu mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu hambalyeeynayaa dadaalka dheeriga ee ka muuqda aqoonyahan fara badan hadda ka hor maanan heli jirin maanta naalay noo tahay farxad bay noo tahay dad fara badan oo maanta dacada dhulka ka qaatay oo boorka iska jafayeen aan aragno waa khayr barwaaqo walaalayaal qodobka cabdikariin oo information ka bixin doono الله sheekh maxamed idris oo isagana warkiisa iyo warbaahin isaga sidoo u hadlay si lamida u hadlaysa iyadana qodob baan ka dhihi live kan marka kuma dheeraan doona inta maan u soo galay wadiga raali ahaanaysa waxaan waqti idan ka cunayo igu dul qaadanaysa codka inaan ismaqlaynaan aad u filayaa Soomaa وانا اسمع لنا سمع I hope ان اسمع لنا وعليكم السلام ورحمة waxaan dhowrkii maalmood ugu dambeeyay aad ugu howlaneen inaan helo information rasmi ah oo ka soo baxa cabdikariin sheekh muuse isaga afkiisa ama cid dul istaagtay الحمد لله وان كغوليسنay وانا inoo hayaa waxaan ka soo bilaabay cabdikariin sheekh muuse imaatinkiisii xamar isagoo oo diyaarad laga soo qaaday cadaado halkaas aan ka soo bilaabay iyo dhowr saacadood ka hor sida uu ahaa waxa la rajayn doono iyo waxa loo maleyn doono inay dhici doonaan ruux walba uu saadaashan karaa wajiyo fara badan bay leedahay in fara badan qoraalada waan ka sameeynay cabdikariin sheekh muuse waxa la keenay magaalada xamar oo cadaado lagaga soo qaaday diyaarad sidii xogta aan ku haynay waa kii run bay ahayd gaaro qafilan lagu wareejiyay wuu joogay xabsi buu ku jiray xabsi caadi uu ku jiray waxaan moodaynaa inuu raaxaysanayo waxaan moodaynaa inuu walaalihii la joogo laakiin xabsi caadi uu ku jiray waa kii afkaarta far badan marka aan kala hayn adi calaa iyo itixaal soo wad oo maalinta ugu dambeysay baan rabaa marka inay hoosh ku sii socoto cabdikariin sheekh muuse wuxuu inoo sheegay marka koowaad wuxuu soo salaamay dhamaan ummadda Soomaaliyeed wuxuu soo salaamay lagu wargeliyay kacdoonka ummadda Soomaaliyeed meesha uu marayo aad buu ugu farxay wuxuu yiri ummadda salaan hal iga gaarsiiyo dhafoor xumo mooyeen saacado ka hor jirdil fara badan ka muuqanin intuu xabsiga Itoobiya galay laakiin way jireen jirdil loo geysay intii la soo qaaday wadada uu ku soo jiray soo murugay yarna ka muuqato xoogaa dhafoor xumo يا حبسك اللي وصل سلام عبد الكريم شيخ موسى وحسورت قلي ويدي إن سوي رفر بدن لنا وقص قضاء يا حبسك يرديسه وحروحي قطة لقلينه information كأنه هو سلام لقيسي بسونكي يا كبيه يا ساعدي يا تلفون كيسي وحين قاعدة مدة دير إنه عبد الكريم حبسك الدحديس وإندها كسارة وحبسك الدحديس وقت فربنا كلنا مركز سلام فربنا وينسوا سلامه يا أدنى الإنسان سلامه يا فنانين تحسن كنت ولا لا بنقول سلامه يا دمانتين iyo abwaaninta Bashiir Rumawiyaad baan ku salaamayaa halgamay urdoox soo dhawaada cabdikariin sheekh muuse sida information ka xabsiga cid ku soo booqatay ay noo keentay ay salaantiisa noo soo gudbisay wuxuu noo sheegay inay geeyeen madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa ay dhigay shirqoolka madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xaaska madaxweyne Farmaajo gabadha magaceeda ma aqaano xaaska madaxweyne Farmaajo ninka la dhaho madaxa sirdoonka Sambaloolshe Bashiir Goobe Hebel Yaasiin waxa kale oo uu sheegay oo qayb lixaad la kulaha Yuusuf Garaad isaguna qayb lixaad la kulaha
waxay ahayn dadkii markii maana qorayno taleefanka dhigtaan ku hayay ilaahay amarkii qalin shaabkaygana iguma jirin laakiin 12 ruux bay ahayn waxaa kale oo ku daray nin la dhaho hebel jaamac maxamed jaamac inuu yiri baan u malayn aadna u munhubin waa inoo soo xaqiijin doontaan dadka Soomaaliyeed zamzam ibn Tabcadi oo salaamay eedo wuxuu inoo sheegay dad 12 ah inay shirqoolka lixaad dadaal lixaad ku galeen aadna ugu dadaaleen in lagu wareejiyo Itoobiya على أي حال إسقى الله الله مدحوين فرماجو رئيس الوزراء علي خيره ينك الله ياسين يسمبلورش مركا أو قاعد إن لجين هي وحكيد ولا ليال وإذنكم إدلة ولا ليال وإذنكم إدلة هاي جينين إثيوبيا هي وريتشنين مقطع إذا لا إذنها يستدي جينا لا إذنها يستدي إذنكم إدلة بكوير ما يندلين إلهي أمريكي أنا يبغى دلهم بعوف عناد عبد الكريم شيخ مسعود كل واقعي أو يروح يدي بينا إثيوبيا إذنكم يدلة وحشر قالك كتاب قادنا هي دنك إثيوبيا نك سفير كوان نور الدين إن لا بهان ملاين وحكى له ده اللي حال جل يسوقنا نك الله ده جبر أو ديارتنا الله صفولة بيدبنا كل سودجي مدحتوي ده مركل لقى سوق هذا هي نسوق الله سعودي جاري جبر عاد بيسوقنا ده البدن وقلي عبد الكريم شيخ موسى markii laga diiday ay dadkii Soomaalida ahaa in hogaaminta moodayna uu aaminay ay ka diideen inuu gacantooda ay ku dilaan ay uu arkay in Itoobiya gacanta loo galiyay oo gaari la saaray garoonka aadan cadda markii lagu sii waday dagaal galay uu dagaalamay marka aad buu dagaalamay laakiin waxay ahaayeen ilaa 12 ruux waa lagu xoog badiyay waxa goobta taagnaa Yuusuf Garaad oo diyaaradda la fuuli doonay ilaa Baydhabo sidoo inoo sheegay ninkii nafti huraha halgamaha geesiga ah warkii ugu dambeeyay saacado ka hor inoo keenay ee salaantiisana inoo soo gudbiyay kacdoonkii dhalinyarada iyo kacdoonka wadaniga inay warka gaareen u geeyay sidoo inoo soo sheegay على أي حال ويسعتي شكلي قرون كبا ديار الميليتري لقى قاضي وحاصير راعي قبر وحاصير راعي نور الدين وحاصير راعي يوسف جراد أو سبب إلى بيدبو أسقوتي إلى هذا أنا فاهم واي سبب أسقوتي سيد قبر لقى سوق جورسدي أو صد بحاجة أو دالي سوق هو قبر لقى جورسدي وكلا كوسي قبر الجوري جدي وكلا سيد أو إلى بيدبو أو السعودي وسؤال لا يبقى له هيد مركن دبك مقلة وصاحب جدا تان وحن ربنا لو قال حل جايده أي كأدني يوسف جراد مش وشوقي يساعده ومقنع يدك أركي يجوب جواها هنا ينوسو شيئا ديار بلويه واي information كان ينوسو جودنها يو information وينوسو جود بيه صاحب كده ذلك إنه هالجمع عبد الكريم شاب موسى حبسيه كسو أركسونا سلامة information مكسو قاوه ولو أي صورة جلوة عدينتي أو هيدا إنه كاميرا لقلو وحول بقى يكو أكاتي وحول بقى عقبات فربنا حتى ويقول شيء إني نفتي سوق خطر قشة هل ماشي أيته وحال جدوا لي جرون كي بيدبو وحال دتشي جرون مقالة إنه يجري عن لين أو إذا ما أرك يتوب بيليهين أو أدسوق ويلا وحال لوس ده في حبس جوين اللي يقين دبرزي الدولار كمجالات أدسوق ويلا أو ماشي عبد الكريم شيخ موسى حد وكتير عبد الكريم شيخ موسى ويددال فربضان كبحيان داد إلى كوي طبعنا وصومالي يوتوبيان بيسوق جري يوتوبيان كنا لا يجمع قاعدة بي نور الدين يا جبر جنرال جبر لبضل لا يجمع قاعدة سجال ككلنا أي صومالي هاي وحلوه وريتشي وحكوا جري حبس قد برزيت حتى عندك عصب أو اللي سجال كروح صومالي ده هاي كوي طبعا روح ويشيء صومالي وحي هاي سجال روح سجال كروحنا وحي كلا هاي مدحوينا فرماجو رئيس الوزراء حسن على خير حاسك الجبردة هو يلا قرن أن مودين أوقب فرماجو ياسين بشير جوب سمبلولش نللي يري محمد جامع عسان كحسوسا وإيش هاي إيوه اللهم عن يوسف جراد إيش هو ضيان اللوبي ضد سجال سوماليا ده وإيش هاي أو ضد أنكو حساب تمينية حاسك فرماجو هو يقرن ما يسنقونين ومد الصومالية من مثلين قبل الصومالية ما يسنقونين يدنا وأنا أتقول درتان إن يدم بقدر كلها هو يقرن ما ينقلن ولا الله ما يسنقلن جيسي بل يرى الصوماليين هو يوم يسنقلن قبل مروده قرن فصل ليدي مروده كوباده قرن الصومالية ده على كصوتك دبرزيد عن صلابته وقت ونوجود يريه دمان تنبا إذن كو إجر عليه دبرزيد وحكوا جوليسي إنه الله عبد الكريم شيخ موسى أو سلامة يسوقنا يسكو شيء
salaana nooga gudbiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waliba anagu si khaas ah salaan iga sii gudbi baan ku yiri maadaama information ka isla ogeyn isaguna Soomaaliyeed oo dhan dadka Soomaaliyeed uu ku salaamay wuu update gareeyay Cabdikariin Sheekh Muuse wuxuu sheegay dadka Soomaaliyeed kacdoonka inay sameynayaan inuu filaynin wuxuu sheegay in la bahdilan yahay maantana cid geesi ah cid Soomaali ah oo Cabdikariin Sheekh Muuse sheegatay inuu rajeynaynin sidaa daraadeed isagoo aad ugu farxay buu yiri ummadda hal ugu salaamo waana la guuleysan doonaa qorshaha ka dambeyn doona waana imaan doonaa waana muuqaalada dambe iyo maalmaha soo socda hadda alla idmo Cabdikariin Sheekh Muuse sida markii loo update gareeyay isaguna oo information ka bixiyay inuu dagaalamayna uu sheegay inuu yiri walaalayaal idinku idile ah gudbinina uu sheegay waqtiga dhan ee ninku la taagnaana 20 daqiiqo aheedo ay ku yaray recording iyo wax duubidna uu san haysanin wax badan oo information dabcan uu kala iloobay laakiin waxa suurta gashay inta basic aheed muhiimka ah Cabdikariin Sheekh Muuse inuu noo soo gudbiyo jibdil badan kaba muuqan markii laga reebo dagaalkii hore ee ridda uu ku galay oo laga awood bata markii hore la qaadayay uu ogaaday Cabdikariin Sheekh Muuse in Ethiopia loo wado halka marka ay marayso walaalaha Soomaaliyeed information ka waan raadin doonaa waana wadi doonaa ruux walba oo Soomaali ah uu dadaali doonaa waxaan kaashanaynaa oo information kan inuu garab istaagan saraakiil Tigray laftirkooda waayo iyagoo taxadaraya dana Ethiopia baahi fara badan baa haysa iyagu wax badan bay ku qasban yihiin haddana dad fara badan oo saraakiil Tigray oo inoo adeegaya jira iska dhaaf Soomaaliya waxa jira dad fara badan oo inoo adeegaya oo Ethiopianka kala ah walaalaheena Soomaaliyeed ee ogaadeen joogana ilmada labada ka wada daadanaysa waa kii mid walaalaha Soomaaliyeed kamid ah waliba reer ogaadeen iyo soo qorayay hooyo la hadlay oo waliba islaam weyn sidoo hadalka u dhigay ay ku tiri eeygi sharabaha xuma wuxuu sameeyay waan maqalay iyadoo jigjiga joogto eeygi sharabaha xuma wuxuu sameeyay waan maqalay ku tiri jigjiga joogto hooyada marka walayna wada taabtay qaranimada Soomaaliyeed baa la taabtay dadnimada Soomaaliyeed baa la taabtay geesigaanagii baa la humiliyeed gareeyay ku dayashada mudnaa ee ku dayan lahayn sida daraadeed dadka Soomaaliyeed xaq waxay u leeyihiin in ruux walba fulay noqdo haday heerka madaxda Soomaaliyeed marayaan waa in ruux walba fulay noqdo waa in ruux walba oo Soomaali isdifaaci waayo waa in ruux walba oo Soomaaliya bahdilaada dhabar ka saarto waayo horjoogayaashii madaxda uu moodayay baa fulay noqdo sabab marka uu kaliya gees u noqdo ruux Soomaaliga maanta inta uu dadka arkayo uma furo inta uu dadka arkayo inta uu farmaajo arkayo inta uu khayr arkayo inta uu xaaska farmaajo la arkayo gabdhii Soomaaliyeed fuliyay noqonaya inta xaaska farmaajo la arkayo gabdhii Soomaaliyeed ma dhiidiyayaan inta xaaska farmaajo la arkayo oo meesha lagu gurgurtanayo dhihi weeday war soo gabar Soomaaliyeed ma ihi dhihi weeday oo ninkeeda kala qabsan weeday oo wiilka in adeerkeeda ra'iisul khayr kala qabsan weeday gabdhaha Soomaaliyeed fulinimo yaa tunka u saaran inay cabsadaan kuwa yar yar garbeyga u leeyihiin ritiga hore sanqaadkiisu leeyahay ritiga hore sanqaadkiisu leeyahay la yaab mala dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed in la arko iyaga cabsanaya la yaab mala wariye ee Soomaaliyeed oo cabsanaya in la arko annagoon wariye ahayn siyaasiyiin ahayn life ka inaan dhex taagno intaan cidna matala ka helino ku qasbanna intaan wariyana matala ka helino intaan meel center dhaxe oo afkaartaanada matasha ay ka helayso ummadda Soomaaliyeed meel ay haataba haday xitaa Ethiopia matasha wana musayna xuquuqdaanada Ethiopia hadii matasha xitaa wana musayna laakiin welina lama matalin weli rights ka naga looma istaagin information ka aanu baahanay welina looma istaagin haday xitaa Ethiopia matasha maanta diyaar baan nahay inaan aamusno laakiin inta aan ka helayna cidna matasha inta aan ka helayna cid runta sheegta inta aan ka helayna cid beenta diida inta aan ka helayna walaalnimadaanada cid isku dumta oo isku kaayeeyada life ka waan dhex taagnaanayna dhamaantaan saanu dhanna Cabdikariin Sheekh Muuse idin soo salaamay Soomaaliya hadalku in la tagine kacdoonkuna wuu og yahay geesiyadu ha wadaan hal la dhiidhiyo digniintii aan shalayta ilaa daraad bixinayna ee Cabdikariin Sheekh Muuse irbada qarqarisada inta lagu duro in isoo qoslahayo oo la Ethiopian baan ahay oo isoo inuu miirkiisu dawladda qalbo wixii loo sheego hadlahaya in shaashada la inoo keeno waxaad moodaa inay yar daahi doonto waxaad moodaa in la fashiliyay waxaad moodaa dadka xabsiga laga soo gurahayay Cabdikariin Sheekh Muuse uu nijadilay uu kufsaday uu kale dhigi jiray xoogaa iyaduna inay Soomaalidu ku baraarugtay oo jigjiga ay yar joojisay maamulka Ethiopia jigjiga jooga yar joojiyeen xoogaa inay dib u yar dhigaan laakiin dhowr bilood kadib iyo bilo kadib iyo isbuucyo kadib
sidii ninkii amxaarka documentary-gi weynaa ay uga soo diyaariyeen adduunka uu diidi doonay isaguna cabdikariin laga soo diyaariyay waa suuragal waan sii raalli ahaada koolkaaga yara jarahaya intaasaan kusoo gabagabeynayay maanta wixii aan information inoo waday wixii soo kordhana hadda allaydma waan keeni doonaa aynu isku xidhnaano geesiguna ha dhiidhiyo inta aan ka bixin sorry culimada Soomaaliyeed afku idan maroor maxaadna khayaanteen oo microphone-ka masaajidka nagu khayaanteen maxaadna khayaanteen oo kitaab aad galeysaan siyaasaddiina noogu dhex darteen maxaadna khayaanteen oo idinkoo macallimiin oo dugsiga idin dhigano barnaamijyaha idin gaarka iyo siyaasadihiina iyo kuwa meelaha kale ka keenteen afka noogu shubteen maxaadna khayaanteen culimada Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Idriis waxaan arkayay ku hadlay wuxuu miiska ka soo qaadanayay oo Sheekh Maxamed Idriis uu laacay Washington Post aniga kaygana been buu u yahay Washington Post inuu run buu u yahay shacabka Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Idriis wuxuu yiri waa beenalayaal hadalka sida ka muuqata ee uu rabo fariinta inuu gudbiyo waxa Washington Post iyo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay qoreen miiska u saaran yahay shacabka Soomaaliyeed oohinteediina ma daawanayo inuu waliba radiyo oo waxba khaldan u dhaw dooni runta Sheekh Maxamed Idriis oo aad u baahan tahay maxay clipka lugaha ka xiran yahay walaa geesiga Soomaaliyeed clipka uu gacmaha ka xiran yahay